madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa shir gudoomiyay shirka golaha wasiirada kaasi oo looga hadlayay amniga, caafimaadka iyo ganacsiga dowlad goboleedka Hirshabelle. wariyaheena Ibraahim Cali Nuur ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Jowhar. shirkan golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle maanta ay ku yeesheen magaalada Jowhar waxaa shir gudoominayay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen. shirka intii uu socday waxaa looga hadlay qodobo badan oo ay ka mid yihiin arrimaha amniga, caafimaadka iyo ganacsiga. sidoo kale shirka golaha wasiirada intii uu socday waxaa warbixin looga dhageystay ilaa ay dhowr wasaaradood. markuu shirka soo dhamaaday waxyaabaha looga hadlay shirka intiisa badan waxaa warbaahinta la wadaagay oo kaga warbixiyay afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Daawud Xaaji Ciro. madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha xukuumadda dowladda Hirshabelle. shirka golaha maanta waxaa warbixin looga dhageystay siyahayaasha wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha, caafimaadka, boostada isgaarsiinta, wasaaradda amniga, gargaarka, wasaaradda ganacsiga, wasaaradda duulista hawada iyo wasaarado kale. warbixinada ay la wadaageen golaha wasiirada waxaa ugu horeeyay wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose. wasaaradda arrimaha gudaha ayaa golaha ugu warbixisay wixii u qabsoomay, iyagoo sheegay in degmooyin badan ay qorsheynayaan inay ka hirgeliyaan mashaariic wax ku ool ah oo dadka iyo deegaankaba wax u tari karta. sidoo kale wasaaraddu waxa ay ka warbixisay halka ay u marayso qorshayaasha dowladaha hoose ee la rabo in degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle laga hirgeliyo golayaasha deegaanka. warbixin dheer ayayna runtii ay la wadaagtay golaha wasiirada oo uu shir gudoominaya madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen. sidoo kale wasaaradda amniga gudaha dowladda Hirshabelle ayaa waxa ay warbixin ay la xiriirtay xaaladaha amniga ee deegaanada Hirshabelle ay la wadaagtay golaha wasiirada ah. wasaaradda runtii waxa ay soo gudbisay warbixino la xiriira. wasaaraddu waxay si weyn qaybihii dambe ee sanadkan ay awood u saartay sida wasiirka wasaaradaba uu golaha uu hor sheegay dardargelinta qorshayaasha booliiska oo isugu jira dib u qaabeynta tababarada dufcada afaraad ee booliiska dowladda Hirshabelle oo meel wanaagsan maraya, xoojinta awoodda booliiska oo loo diyaariyay ilaa 12 gaadiid ah. dhawaanna gaadiidka uu soo gaari doono ciidanka booliiska dowladda Hirshabelle. waa shirkii ugu horeeyay ee golaha wasiirada Hirshabelle ee uu shir gudoomiyay madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen tan iyo markii loo doortay xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka Hirshabelle. Ibraahim Cali Nuur, TV Universal, Jowhar.